Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawaada muujiya janaal saaxiib haddii aad nagu cusub tahay subscribe noo saar muuqaalkan haddii ku cajabiyo fadlan like saar mahadsanid. Kusoo dhawaada mowduuceena. Anigoo 2 jir ah ayuu aabahay burjuka dab ah igu dhex tuuray. Liyuush oo hadda ah 16 jir wuxuu waqtigiisii yaraanta oo dhan ku soo qaatay xarumaha xanaanada caafimaadka ee caalamka kadib markii uu aabihiis isku dayay inuu dab ku dilo. Sawir qaadaha lagu magacaabo Bayfal Falkof ayaa sawir qaas ah ka soo sameeyay wiilkan. Eeg muuqaalkaygu wuxuu u egyahay sida carrada xeebta, ayuu yiri Liyuush isagoo xoogaa yara qoslaya. Sidee looga falcelin karaa kaftankaas oo kale? Hadalkan uu yiri ma lagu qosli karaa? Markaad dhan ka eegto sax ma aha in lala qoslo markii uu Liyuush sidaas dhaho. Liyuush wuxuu ka soo jeedaa xaafad ku taalla bariga waddanka Serbiya, halkaas oo ay ku badan yihiin dadka saboolka ah iyo kuwa maandooriyaha u isticmaala sida xad dhaafka ah. Sanadkii 2005 xilli lagu guda jiray dabaaldegyadii sanadka cusub ayuu aabihiis oo markaas maandooriye cabsanaa burjiko dabka holcaya ku dhex tuuray 2 carruur oo dhalay. Cunugii kale oo 14 bilood jiray dabkii ayuu ku geeriyooday isla markiiba. Liyuush oo xilligaas 2 sano jir ahaa ayaa ku xigay, laakiin hooyadiis ayaa u suurto gashay in ay ka badbaadiso. Waxaa dhacdadaas ka soo gaartay dhaawacyo dab ah oo aad u daran. Waxa uu ka gubtay madaxa, gacmaha iyo meelo ka mid ah qaarka hore oo ay ku jiraan sambabada, laakiin noloshiisii way badbaaday. Sawir qaadaha soo diyaariyay sawirada wiilkan yar ayaa yidhi, "Ayeeyaday ayaa suuqa wixii ka soo iibin jirtay wargeysyada ay ku qoran yihiin warar la xiriira carruurta la gubay. Waxaa si fiican u xasuustaa iyadoo akhrinaysa sheekooyin naxdin leh oo ku saabsan wiil yar oo lagu gubay burjiko shidan. Waxaan xasuustaa anigoo aad uga cabsada in aan eego holaca dabka. Waxaa kale oo aan xasuustaa in lacag loo ururin jiray daaweynta Liyuush." Liyuush waxaa laga qaaday magaaladii uu ku dhashay. Hooyadiis awood dhaqaale uma aysan lahayn in ay xanaano caafimaad siiso, sidaas darteed waxaa loo wareejiyay qoys kale oo degan magaalada Moscow. Waxa uu ku caafimaaday dadaal socday 10 sano, wuxuuna maray qalliino badan oo dhinaca maqaarka ah iyo daaweyn qaas ah. Markii ay da'diisu noqotay 16 sano waxay ahayd xilli safarro lagu geeyay ku dhowaad kala bar ka mid ah waddamada dunida. Waxaa la geeyay Switzerland, Mareykanka, Jarmalka, Faransiiska, meelo badan ayuu yiri isagoo tirinaya liiska dalal uu soo maray intii daaweyntiisu ay socotay. Dhibaatada aad qabtid waxay kuu horseedi kartaa in aad sida kale u eegtid arrimaha iyo in aad fursad cusub heshid, laakiin ma aha in aad noloshaada u burburiso wixii kugu dhacay, ayuu yiri Liyuush. Intaasoo sano kadib, Liyuush muuqaalkiisii weli wuxuu soo jiidanayaa dareenka indhaha. Dadku ama way kaa baqayaan iyagoon ogeyn wixii kugu dhacay, ama waxay doonayaan in ay ku bartaan si ay xaaladaada u ogaadaan, ayuu yidhi. Dabeecadaha la yaabka leh ee uu qabo Liyuush waxaa ka mid ah in uu isagu isku qoslo, uuna ku qoslo dunida ku hareeraysan. Ma raadinayo qof uu ku eedeeyo wixii ku dhacay, kaliya wuxuu ku qanacsan yahay noloshiisa. Xitaa fikradda uu dabka ka aaminsan yahay ayaa la yaab sii ah. Waan jeclahay dabka, aad baan u jeclahay meelaha dabka laga shido. Waan ogahay in dadkii horay u gubtay ay ka cabsan karaan, laakiin aniga iima muuqato waxaan uga boqo dabka. Waan ka helaa iftiinkiisa iyo diirimaadkiisa iyo xitaa quruxdiisa. Markasta waan iska daawan karaa. Wax laga argagaxo ma aha. Liyuush wuxuu isku tilmaamaa nooc ka mid ah shimbiraha oo marka ay dhimanayso isgubta si ay dambaska mar kale uga dhalato. Waan u qaab egahay. Anigoo ilmo yar ah ayaan gubtay. Markii si loo eego aniga qudhaydu dambaska ayaan ka soo dhashay mar kale. Liyuush wuxuu ku nool yahay oo wax ku bartaa magaalada Moscow. Wuxuu mar walba la xiriiraa aabihiis oo ah kii dabka ku dhex riday, iskuna dayay in uu ku dilo burjiko holcaysa. Haddana sidaas oo ay tahay, Liyuush wuxuu yaabaa markii ay dadka weydiiyaan in aabihiis cafiyay iyo in kale. Waa hore ayaan cafiyay. Hadda waan iska sheekaysanaa. Sida dadka caadiga ah ayaan u wada xiriirnaa, ayuu yidhi. Weligay ma nicin aabahay. Waxaa laga yaabaa inuu isagu ii haysto in aan u caraysanahay, laakiin markii aan kulannay oo aan dib ugu laabtay magaaladii aan ku dhashay, waan wada sheekaysanay. Haddana warqado ayaan isku dirnaa si uusan u lumin iska warqabkeennii. Waad mahadsantihiin daawashadiina muuqaalka.